dadka dhalinyarada ah waxa weeye qalbulmawaasiin waxaa ku dhacay qalbulmawaasiin fara'ow alxasana qabiixan walqabiixa xasanan dhalinyaradii waxaa ku dhacay qalbulmawaasiin mawaasiintii bini aadamku wax ku cabiri jiray cabiradii oo dhan ayaa ku dabagedoomay dhalinyaradii cabirku muxuu ugu dabagedoomay wixii sharafta lahaayee wanaaggiina waxay u arkeen wax fool xun wixii foosha xumaana shaydaankii wuxuu u tusiyey wax wanaagsan oo lagu xaragoodo inuu yahay marka waxaa la yidhaha qalbulmawaasiin halbeegyadii oo dabagedoon ku dhacay cinda shabaab oo dadkii dhallinyarada ahaa dadkii dhallinyarada agtoodii qalbulmawaasiina ku dhacay mawaasiintii wax lagu cabiri jiray oo bini aadamku wax ku cabiri jiray ayaa iska dabagedoontay markaasi wixii qorxoonaana waxay u arkeen wax fool xun wixii foosha xumaana waxay u arkeen wax qurux badan inuu yahay qofkii marka muxuu is leeyahay haddii jeegadii aadan xiiranin wuxuu leeyahay yacni quruxdaadii waxbaa ka dhiman ayuu is leeyahay quruxdii waxbaa ka dhiman waxaa la weydiiyey sheekhan la yidhaaho ibnu khalduun saaxiibu muqadamati ibnu khalduun kitaabkan ibnu khalduun alandalusi wuxuu ka mid ahaa culimmadii dhulkan sbain ku nooleyd uu ka mid ahaa culumta ijtimaaca uu aad u yaqiinay marka waxaa la weydiiyey maxaa qofka bini aadamka ku kalifa inuu qof kaloo bini aadama uu ku daysado markaasuu wuxuu yidhi alhaziima nafsiya qof bini aadama haddaad aragtid qof kale asagoo ku daysanaya waxaa ku kalifuu yidhi hal shay waa qalbi jab oo qofkaasuu u qalbi jabay buu yidhi wax kale ma keenayso yacni wuxuu aaminsan yahay qofkan oo kale haddaadan noqon quruxdaadii iyo horumarkaagii waxbaa ka dhiman haddaad aragtid qof ku dayanaya labiskiisa qaabkuu u xiiranayo qaabkuu u jaranayo qaabkuu u soconayo qof kale ku dayanaya haddaad aragtid waa qofkaa u qalbi jabay buu yidhi macno kalena ma jiro marka waxaa ceeb ah yacni taqliidka asaaskiisa iyo qof in lagu daydo asaaskiisa waa qalbi jab waxaa ceeb ah qofkii dhallinyarada ahaa inuu gaalkii u qalbi jabo oo uu aamino haqaafadaadii ilbaxnimadaadii xadaaradaadii magaalo joognimadaadii waxbaa ka dhimanaanaya haddaadan gaalkan ku dayan waa dullinimo leanna waxaa weeye asaaska taqliidka iyo alqudwa sayi'a asaasuhaa wa manhajuhaa waxa weeye waa haziima nafsiya waa qofku qalbi jab uu ku dhacayo haddii qalbi jab uu kugu dhacayo nabigaaga u qalbi jab sala allahu calayh wasalam nabigaaga u qalbi jaboo aamin in aadan qurxoonaanaynin ilaa aad nebi moxamed ka raacdo sala allahu calayh wasalam ilbaxnimadaadii inay wax ka dhiman yihiin ilaa aad ka raacdo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ilaa waxaa weye kullu lqudwa alhaziima nafsiya ku dayashada waxaa keena haziima nafsiya haddaad marka qof u qalbi jabaysid u qalbi jab nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam laakiin marba haddaad gaal tiraahid xadaaradaadii iyo magaalo joognimadaadii iyo ilbaxnimadaadii waxbaa ka dhiman sidii gaalkii haddaadan u soconin ama u xiran ama u labisan kulligood dhallinyarada gaalada ku dayanaya waxaa haya qalbi jab wax kale ma jiraan sababkeedu waa qalbi jab leanna waxay u qalbi jaban yihiin haddaadan sidan gaalkan u xiran noloshii waxbaa ka dhiman iyo quruxdii yacni ama ha inkiraan ama ha qiraan xaqiiqadu laakiin waa taas haziima nafsiya wey wayukrahu waxaa la nacaa alqazacu dhinac xiirkii الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن